marka xaq uma lahan inay ka hadlaan wax gudaheena ah madaxweynahana waxa waaye waa kaga mahad celinaynaa markasta madaxweynaha wuxuu u taagan yahay difaacidda dalkeena iyo dadnimadeena iyo sharafteena ayuu madaxweynaha u taagan yahay mudan madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa ankaas haddaanaana dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliyeedna aad u soo dhaweeyeen laakiin arrimaha siyaasadda annaga u madax bannaan Soomaali annaga isxalli karno kii qaldan annaga gacanta ka qabsayna kii saxanna annaga la shaqaynayna marka aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gulli gobonnimada leenahay 5 sano soo socotana insha Allah ta'ala asigan dooranayna birmada Xasan Sheekh oo u sheegay in ay ka faraha ka qaadaan arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda Soomaaliyana ay Soomaali u taalo taasna waa ugu mahad celinaynaa madaxweynaha warkaas horta waa ku fiican yahay Soomaaliya horta anaka waxna dhibaateeyay waa fargelin shisheeye waxa wadankeena halahan soo gaarsay burburkan uu nagu fogaaday waa fargelintii maanta horta in la fahmo oo laga hadlo oo madaxweynaha wadanka ugu sareeyo oo maanta uu diido lima fargelin karo arrinta Soomaaliya u taas waana ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol jawaab macquul ah ummadda Soomaaliyeed ay ku farxday oo anaga dhan xalay dhan aan la mashxardeynay ayuu madaxweynaha shalay halkaas ka jeediyay waana ku mahadsan yahay aad iyo aadaan u soo dhaweynaynaa aad iyo aadaan u taageersanaa madaxweynaha go'aanka uu qaatay shalay waana u maleynayna inuu qaadahayo waana go'aankii uu madaxweynaha ku aayo lahay asiga waana ku saxan yahay arrimaha Soomaaliya in gudaha Soomaaliya looga tashtana waa arrin muhiim ah oo Soomaaliya dhanka dhex guuxaysa laakiin waxyaabaha kale oo mushtaraka ah oo anaka naga dhaxeeyo oo security-ka oo dawladaha oo Soomaaliya oo hadda u jooga ciidanka oo nabad ilaalinta ah waxyaabaha idinka qosaya aan ka wada hadalno waa ku saxan yahay warkaas waa war macna maanta aan ku faraxnay in maanta fargelinta aan iska diino arrintaas arrin aad iyo aad u wanaagsan waaye waana arrin madaxweynaha Soomaaliya aan ka filaynay waana xaq ayuuna u leeyahay iyo awood inuu siyaasadda Soomaaliya gudaheeda lagu xalliyo haddii la isdilaa iyo haddii la heshiiyaba gudaheeda lagu xalliyo annaga 26 sano ay dawladana soo dhismaysa maanta in shisheeye doorashada iyo arrimaha kale siyaasadda ay fargeliyaan waa mamnuuc wixii amniga iyo iskaashi iyo dhaqaalaha wadamada inay nagala hadlaan caalamka iyo wadamada Afrika garay u leeyihiin waana soo dhaweynaynaa laakiin arrimaha siyaasadda annaga u madax bannaan Soomaali annaga isxalli karno kii qaldan annaga gacanta ka qabsayna kii saxanna annaga la shaqaynayna marka aad iyo aadan ugu mahad celinaynaa madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud gulli gobonnimada leenahay 5 sano soo socotana insha Allah ta'ala asigan dooranayna birmada Xasan Sheekh muxuu saameyn ku yeelan karaa xiriirka kala dhaxeeya wadamada Afrika iyo ciidamada ka jooga Soomaaliya hadalkii shalay madaxweynaha uu hortooda ka jeediyay sidoo kale faragelinta Soomaaliya in laga daayo oo ku halkaas ka sheegay sax waaye wax uu saameyn ku mala wadamada Afrika ee ciidanka Soomaaliya ka jooga inay amniga iyo dawladnimada Soomaaliya inay kala shaqeeyaan ay ciidanka u joogan maahane saraakiisha hore askartoor inay siyaasadda ku milmaan uma joogan iyaguna inay siyaasaddan ay go'aamiyaan kuma jiraan waliba wadamo badan oo inta laaba laga qaadan rabaa jirta Kenya ugu sukayso ay faragelin qaawan ugu hayso Axmedow wax meesha ku haya oo dawladda Soomaaliya kala jaraya state-ka dhamay ee Jubbaland state Soomaaliya ah Jubbaland Kenya ka dhigtay marka aad iyo aad ugu mahadsan madaxweynaha soo dhaweynaa waana go'aan geesinimo leh u qaatay sida bannaan qof aan go'aan lahayn dalkan ma hogaamin karta annaga haddaan nahay shacabka Soomaaliyeed madaxweyne Xasan Sheekh wax badan ayuu cunaqabataynta hubka u qaaday diina cafinuu sameeyay dhaqaalaha bariga Afrika uu nagu diray markab shidaalo u keenay maantana hadduu dhahay siyaasadda gudaha Soomaaliya ka tashanaysa idinku shaqana ku malin dawraha waa ku mahadsan yahay aad iyo aad aan ugu hambaleeynaa waana kala shaqaynaynaa kalsooniyaan ku siinaynaa shacabka Soomaaliyeed nahay inaan ku taageersanahay arrintaas iyo go'aanka uu shal qaatay oo go'aanka geesimada leh gul iyo gobonnimada leenahay insha Allah horta mucaarad nimanka meesha hadda jooga mucaaradka la leeyahay markay yuhuudda Soomaaliland ay aadeen kama hadlin marka oo ciidanka Soomaaliyeed ay guul gaaraan ma hambaliyaan waa nimankii yiri mucaaradka hal guuto dagaalama karta ciidanku ma jiraan yirin habeen hore waxay maalin hore waxay dhaheen wadanka ku meel gaar loo celiyo dhiiqa horta markaas ay galeen habeen dhaxdan haddana qudbeeyaan waxay dhaheen wadanka shabaab qabsa ciidamada Afrika dil laga baxsho war haddii asgariga gorgorka iyo halka danabka iyo halka ciidamada gaarka iyo halka haramcadka xoo furanta ugu dhimaa haddii la leeyahay wadankan Afrika haddii ka baxdo waana la qabsaha waxna la qabsaa male mucaaradka waa fashilman dhiiqay dhaxda ka galeen ilaahay ana jibiyay qofku haddii dar Allaahayna waa sidii rabbana kibira jablaha leeyahay waana jabeen shacabka Soomaaliyeed dawladnimo maanta u baahan yihiin siyaasad xasan waa ku qabsan karaan waa la hadli karaan wala doodi karaan inay marna caasimada amnigeeda baan ka sheegaan mar dagaal geliyaan
marna ay yiraahdeen ku meel gaar loo celiyo mar ay yiraahdeen shabaab anna qabsaay annaga qalbi jabiyaan ay qaraxyadii dhigagii balaayada noo celiyaan mucaarad naba yiraan nimankaas waa niman danagaar loo imaarad yahuud wataan garabka hor Allah garam horna Allah nooga haayo buuc gadaalo jaban Allah ka dhigo bismillaah TV Juba TV waa ku dhawahay horta waa arin aan madaxweynaha ka filaynay waana kaga hambalyeynaa madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Dr. Xasan Sheekh Maxamuud inuu ku dhiiraday runtana u sheegay wadamada ee Soomaaliya ka joogay ciidamadooda inay saboos uga banaaneen inay ka hadlaan internalka waxyaabaha gudaha Soomaaliya gudaheeda ah waayo shirku wuxuu ahaa shir oo internet oo banaanka ahaa international looga hadlayay ciidamada ka jooga Soomaaliya muddo intee la eg ay sii joogi karaan mise hadda waa laga maarmo oo bixi karaan ayay ahayd marka xaq uma lahan inay ka hadlaan wax gudaheena ah madaxweynahana waxa waaye waa kaga mahad celinaynaa markasta madaxweynaha wuxuu u taagan yahay difaacidda dalkeena iyo dadnimadeena iyo sharafteena ayuu madaxweynaha u taagan yahay mudan madaxweyne waa kaaga mahad celinaynaa ankaas haddaan ahaanay dhalinyarada iyo shacabka Soomaaliyeedna aad u soo dhaweeyeen wallaahi billaahi ciidamada Afrikaanka ah inay maanta dalkeena anaga ay ka baxaan waa soo dhaweynaynaa waayo ciidamadana oo Soomaaliyeed maanta way xoogeysteen maanta waxaan aragnaa in ay ka yihiin dadka kaliya ee jiidaha jooga dadka kaliya ee khawaarijta meel walba ay joogaan ka dabagalaayo ee habeen imaano oo u dhaartay oo u daba joogo ay sannasan oo xataa ay leeyihiin ilaahu naga dhig carraxta naga dhig oo carradii xataa laftigeeda laga daba tagayo marka aniga waa ku kalsoonahay ciidamadeena xoogga dalka Soomaaliyeed meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciidamadeena waa in ku kalsoonahay waayo adinka ayaa noo dhaartay adinka ayaan dhaawaan difaacaynaa anaka kalsoonidii aadna siisan ayna siin anaka dad badan waxay qabaan in shirka madaxeedkaasi wadamada ciidamada Soomaaliya ka jooga sidoo kale Soomaaliya ka qaybgalaysay warmutiyadka in lagu daro arinta Soomaaliya soo fargeliyaan khilaafaadka dhex jira ay door weyn ku lahaayeen mucaaradka taasoo wadamada Afrika ciidamada Soomaaliya ka jooga ay ku cadaadinayeen in arinta la soo fargeliyo sidoo kalena Soomaaliyana ay la heshiisiyo walaal horta ciidamada oo hadda dalkeena ka jooga horta muddadii ay joogeen wax badan way ka qabteen dalkeena oo waxbay xoreeyeen waa aaminsanaa dad ugu dhintay waa aaminsanaa dad baa ugu dhaawacmay waa aaminsanaa dhaqaale ayaa ugu baxay laakiin maanta iyo shalay way noo kala dheer tahay maanta annaka ayaa ah dadkii wax qabsan lahaa annaka waaye ay shalay dee wax noo qabteen anaga kama sugayna ilaa yawmal qiyaama inay dhex taagnaadaan waayo booska ay maanta joogaan maanta waa la wareegi karnaa annaka in qodob lagu soo darana arrimaha Soomaaliya qaasatan gudahana wax aan yeelayna ma ahan annaka waayo shalay waddanka nidaamkiisa iyo institutionkiisa iyo wixiisa dhan ma dhisneen markay ay joogeen oo xilliga Cabdullaahi Yuusuf xilliga Sheekh Shariif laakiin maanta ciidamadeena waxay leeyihiin qaybo kala duwan 26aad 56aad 27aad waa kala qaybsan yihiin isku ma dhaxayacsano waa la kala yaqaanaa sektarada ay kala joogaan maanta waxaan aana ciidamo dhisanana annaka way jiraan waxyaabo yar oo naga dhimo oo taakuleenta ah sida cirka sida taangiyada waxaas laakiin waan gaaraynaa waan ugu baaqi lahayn in madaxweynaha Soomaaliya cid walba oo arrinkaasi gacan naga siinaysa inuu aado laakiin arrimaha gudaha Soomaaliya waxay u taalaa dawladda iyo xukuumadda u taalaa siday ay ka yeeli lahaayeen adar waa mahadsan tahay su'aashaada haddaan ka jawaabo arrinkii shalay oo Uganda shirkii uu ka qayb galay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Dr. Xasan Sheekh Maxamuud ku saabsanaa wadamada ciidamada ka joogo dalkeena Soomaaliya shirku wuxuu ahay oo looga doodayay mustaqbalka ciidamada wadamada ee halkan joogo laakiin shirka waxaa lagu soo daray ajende kale oo ahayn ajendihii meeshiilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalkana runtii asiga wuxuu u taagan yahay astaanta qaranka difaaca qaranka hekalka qaranka waa ninkii waardiyeynay hadalka oo shalay meesha ka jeediyey oo kaga hadlay ciidamada iyo amniga iyo wax kasta oo meesha ka jira suntii wuu asiibay madaxweynaha wuxuuna u sheegay in ay faraha ka qaadaan arrimaha Soomaaliya ee siyaasadda Soomaaliyana ay Soomaali u taallo taasna waa ugu mahad celinaynaa madaxweynaha waana ku mahadsan yahay boqolkiiba boqol jawaab macquula ummadda Soomaaliyeed ay ku farxday oo annaga dhan xalay dhan aan la mashxaradaynay ayuu madaxweynaha shalay halkaas ka jeediyay waana ku mahadsan yahay door weyn waxa ka qaataa yiri in ay halkaasi ku daraan ama qodobka warmutiyadkaas lagu daro arinta khilaafaadka jir gudaha Soomaaliya mucaaradka oo si weyn muddooyinka soo dhaafay warqado u dirayay midowga Afrika ee beesha caalamka mucaaradka sidiisaba oo dalka Soomaaliya joogo wax fiican kama shaqeeyaan waa maqalnay inay waraaqo u direen shirkaasi ka dhacay dalka Uganda waa la soconay
laakiin warmutiyeedka qodobka lagu soo daray oo madaxweynaha uu diiday wuu ku saxnay wuuna boqolkiiba boqol waan ugu mahad celinay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka qodobkaasi sidoo u asiibay oo ugu jawaabay waa ku mahadsan yahay hadalkaas saameyn ma ku yeelan karaa waddamada ciidamada Soomaaliya ka jooga waddamada dalka Soomaaliya ka jooga ciidamada wax saameyn kuma yeelan karo meesha maandeedii ku joogaan maandeedka haddii joogaan oo dhamaadane way baxaan haddana waxay ku doodayeen 2 sano extension oo aan sii joogna hal la siiyo annaga haddii hadda baxaan maanta ay baxaan Soomaaliland waa isku filanahay ciidankeena waa dhisan yahay kalka ciidamada waa noo dhisan yihiin dalka meel kasta ciidana joogo waxa waaye waa ku faraxsanahay ciidamada qalabka siistay wax wadaan iyo dawladda federaalka Soomaaliya shalay horta waa dhageystay madaxweynaha meesha khudbad uu ka jeediyay beryahan waa la soconay in meesha saraakiisha maarta militariga oo macnaha wadamada yani oo ay ka shiraayeen horta alxamdulillah wadankeena maanta horta meel fiican ayuu joogaa madaxweynaha wuxuu dhahay Soomaaliya khilaafaadkeeda in arrimaha gudaha ayada loo dhaafo laakiin arrimaha kale oo security kale oo macnaha mushtaraka ah aan ka wada hadalna warkaas horta waa ku fiican yahay Soomaaliya horta anaka waxna dhibaateeyay waa faragelin shisheeye waxa wadankeena halahan soo gaarsay burburkan uu nagu fogaaday waa faragelintii maanta horta in la fahmo oo laga hadlo oo madaxweynaha wadanka ugu sarreeya oo maanta uu diido lima faragelin karo arrinta Soomaaliya u taala laakiin waxyaabaha kale oo mushtaraka ah oo anaka naga dhaxeeyo oo security-ka oo dawladaha oo Soomaaliya oo hadda u jooga ciidanka oo nabad ilaalinta ah waxyaabaha idinka qoseeyo aan ka wada hadalno waa ku saxan yahay warkaas waa war macna maanta aan ku farxanay in maanta faragelinta aan iska diino tan kale labaad haddaan u soo laabto khilaafka Soomaaliya horta meel dheer ma jiro waa Soomaali gudaheed waa wax geed hoostiisa lagu dhamaysan karo madaxweynaha waa nin 2 jeer xilkan soo qabtay waa nin wax fahansan waa nin marna mucaarad ahaa marna madaxweyne ahaa haddana madaxweyne ah marka uu dareemi karaa meel walba ay wax ka qaldan yihiin marka madaxweynaha waxaan dhihi lahaa ragga saaxiibada ah oo hadda ka horna mucaarad wada aheedeen oo soo halganteen maanta Ilaahay ku calfay inaad kursiga aad qabsato awal kursiga hal qof ayaa loo dooran lahaa waa lagu doortay marka waad og tahay bahasha meeshay ku qaloocan tahay nin maanta wax loo sheegaa ma tiid nin qurbaha ka yimid ma tiid nin wadanka maartaay oo wax badan ku noolaatay oo haddana madaxweyne 2 jeer ka soo noqday marka waxaan dhihi lahaa adoo og inaysan faragelin fiicneen faragelin waxa keeni kara in anaka aan heshiin weyno markii aan heshiin weyno aan isqaban weyno faragelin markaas iman kartaa ciidamada shisheeye maanta waxa keenay waa khilaaf fogaaday oo anaka isxalin weynay markii madaxweynuhu adoo saas u og inaad man dadka walaalaha qancin weyso oo la fariisan weyso horta waa nasiib darro waan kuuga taageersanahay inaad diiday faragelinta boqolkiiba waa kuuga taageersanahay faragelin ayaa halkaana dhigtay faragelin ma rabno adoo taas og oo xog ogaal ah madaxweynihin ah waa inaad dadka ragga saaxiibada siyaasadda kugu hayo waa dad Soomaaliyeed waa dad wax kula leh waa dad kula soo halgamay waa dad maartay muddo soo shaqeyseen waxaan ka rabaa dadkaas inaad la fariisato bahasha meesha ay qaloocantahay waa og tahay lagu sheegay ka toosiso tan kale labaadna wadankan hadda doorasho qof cod u socdaa doorasho qof cod naftarkeeda way fiican tahay laakiin maanta maxkamad dastuuriya oo haddii doorashada soo khilaaf oo dadkan kala saaraysa male maxkamadda waxaa la rabaa dadkan markay isqabtaan adduunka markay oo doorasho la soo qabsada hadda Kenya ay ka dhacday maxkamadda wax go'aamis anaka maxkamad dastuuriya oo maanta dadkan markay doorasho la soo qabsada kala go'aamin leed ma haysanee xabad ma kala bixinaa qor ma kala bixinaa waa maya horta waa in horta midaasna la meel mariyaa waxaan leeyahay waa kuuga taageersanahay ninkii madaxweynaha wadanka tahay sharciyeed u haysataa faragelinta ma rabno waxna dhibaateeyay indhaha naga tiray waa faragelin shisheeyo haddana maadaama aad saas u og tahay waxa keeni kara in la isfahmi waayo isfahanka soo dedeji raggaan la fariiso bahasha meesha ka sii socoto wadankan hore u socda inuu dib u laabto ma rabno marka mudane madaxweyne waxaan ku leeyahay dib u heshiisiin si degdeg ah gogol ku dhig dadka walaalaha la heshi arrinta hore loo wadan leeyahay aad iyo aad aan u soo dhaweynaynaa aad iyo aad aan u taageersanahay madaxweynaha go'aanka uu qaatay shalay waana u maleynaynaa inuu qaadahayo waana go'aankii uu madaxweynaha ku aayo u lahay asiga waana ku saxan yahay arrimaha Soomaaliya in gudaha Soomaaliya looga tashtana waa arrin muhiim ah oo Soomaaliya oo dhanka dhex guuxaysa waxa kale nimankan mucaaradka oo ayaan hore warqadaha u diray beesha caalamka waxay asal naga gadayeen badeeca expire oo siyaasad expire waxaan aaminsanahay in siyaasaddaas ay siyaasad asal dibadda ay ka keeneen
dibadda ay ka keeneen ay u celiyeen isla ayagiyaana kuwii ay ka keeneen ay u celiyeenaana shalay tusay dadka inay yihiin kuwa inta ka hadlaaya iyo kuwaas ay isku mid yihiin madaxweynuhuna go'aan fiican uu qaatay waana ku taageeraynaa maya leesma dhihi karo dowladda Soomaaliya maalintii wax loo qorqori jiray ma joogto waxaan aaminsanahay inay awoodaysatay amnigeeda ayadu si hadaysan ku filnayn ay meeshii aan asalay taagneed meel ka fiican ay taagan tahay ma taagnin meeshii 12 aan taagnaynay ma taagnin 2009 meeshaan taagnaynay waxaan taaganaa meel fiican oo rijo fiican aan leenahay ciidamadaynu haddaba way la dagaalamaan argagixisada hawl fiican ay qabtaan waxaan aaminsanahay inaan ciidamo shisheeye ka maarmi karno laakiin say u baxayaan iyo meeqa sanay qaadahe iyo waxaasi waa mawduuc kale oo laga doodi karo laakiin siyaasadda Soomaaliya in dibadda looga hadlo waa wax aad u qalafsan oo ummadda Soomaaliyeed niyad jab u keenay